عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا أصحابتي ذكروا حتى بدن هرساق وفشي أنا نذكر جعل عاد بندين سلام أما بعد حندين لي السود وهذا ملك السلك اللي تشوفتان دون الدافع هذا وقت كالصياح اللي كاستويدين تبوا حندين لي هاي وعنا وناس وحرجيني أنا ذي عافمات قبطان والحمد لله سدان دين كونا أحسن هاي ما شاء الله. أما بعد ما أنت تعسيتي رانيا لبنو حنودرنا حقائي كوف الله يرحم الراحمين وقاس حسن وقاس خليف وقاس الربلو وإلا إيو أفر إيا لباتن وقاس سيرو لها إلا مدبقول لي السنة أي هيبدا نسكسو دحليين وقاس لماذا وقاس كانوا أها مدشان سنة وقاس runtii oo ku geeriyooday habeen hore caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo maantana loo soo wado gobolka Hiiraan lana rabo in buula berdameel u dhow lagu aaso insha Allah. haddaba ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble ayaa wuxuu ahaa dawladii Maxamed Siyaad Barre shaqaalihii customiska muddooyinkii dambena ka shaqeynayay kala bayrka muddooyinkii u dambeeyay ku noolaa caasimadda Soomaaliland jamhuuriyadda barakaysan Hargeysa cadeey ugaas kale oo 5 sano u dambeeyay ka sii maqnaa Hargeysa maadaama in badan ku noolaa gobolada waqooyiga kadib markii loo cimaamaday ugaasnimadii ay u lahaayeen hidaha maadaama 23 ugaas ku horeeyay ay xilka soo qabteen oo waxa siirkiisa okay ugaaska haddaba maanta waxa uu tacsiideynaya Cabdi Maxamed Guure عاش جامع وداد عاشي الكعس iyo caruurtooda ayaa halkan waxay uga dirayaan ehelkii qaraabadii qarankii Soomaaliyeed beeshii xawaadle ugaas ku ka tirsanay uu ka baxay intaba waxay leen Ilaahay samiriya inaan haynaga siiyo way isla wada ehelkii maadaama ehelkooda aha oo iska reer Cabdi Maxamed Guure iyo caasho jaamudad waxay leeyihiin Ilaahay samiriya imaan saadaqa haynaga siiyo caruurtiisa siday sheegeen in Ingiriiska jirta ayaa caruur oo ah laakiin qoyskii iyo reerkii iyo eheliyadii iyo beeshii Allahumma salli ala Muhammad xawaale ugaaska oo markaa uu ahaa ee uu ka baxayba Ilaahay samiriya iyo ummadda Soomaaliyeed iyo gobolkii Hiiraan iyo beledweynaha inta kaleba ilaa buula bari waayahay maadaama ugaas balaaran ahaa habeen horan uu halka ku geeriyooday dad badan oo ilaa Jabuuti iyo maadaama ugaasyo badan ay ka soo qayb galayaan sidaas ay geeridu u daahday iyo diyaaradihii oo xanibmay maadaama la is sugayo laakiin maanta waxaan jecelahay in la aasi doono marxuumka ugaaska beesha barakaysan ee xawaadle Ilaahay samiriya ima saadaqa haynaga siiyo ugaaska iyo qoyskiisina Allah ka siiyo iyo eheliyadii uu ka baxay iyo cidii uu xilka ugaasnimada u hayay ee beesha xawaadle waa aniga hirsaaqo official oo idin la wadaagay dambaalkan tacsida tiiraanyada leh ugaaska iyo maama Caasha jaamac wadaad Caasha ilkaas oo soo igmata iyo qoyskeeda iyo caruurteeda iyo dhammaan family-geeda iyadoo halka iyo ka soo direysay Abu Dhabi tacsideena maadaama dalka Imaaraad ku sugan tahay halkaas ayay tacsideedii kala soo wadaagtay markastana waxay jeceshay dhibiyo dhaafina idin kala qayb qaadato Caasha maadaama tii qof wanaagsan tacsidii hadda ka hor aynu soo direynay ahayd Faaduma Cali Jaamac Faaduma Nagruma oo ay ku jiraan asxaab badan runtii oo ay halkan uga tacsiyadeynaysa markastana jecel wixii tacsi ah xageedana inay kala qayb qaadato wixii kale ee wanaaga iyo wixii kale ee farxadana ay mar walba idin kala dabaaldegto markastana jecel wax walba xageena ku yimaado inay qayb ka noqoto idin kala qayb qaadato sida geeriyaha iyo waxyaabo badan oo namid ah haddaba Caasha waxay idin leedahay Ilaahay samirka hayno siyaadiyo qalbigana hayno adkay ugaas inaga wada baxay buu ahaa dhan kasta haday gobolada koonfurta iyo gobolada waqooyi tahayba aniga oo jooga from Berbera iyo Caasha oo joogta dalka Imaaraadka waxaan idin leenahay Ilaahay samiriya ima saadaqa haynaga si intayna mar labaad ku kulmi doono waxaan idin kaga tagay wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh